gudoomiyaha golaha deegaanka ahna maayirka degmada Laascaanood waliba xogayaha fulinta dawladda hoose ayaa maanta daafuray mashruuca tamarta cadceedda ku shaqeynayo xaafad kamid ah magaalada Laascaanood lagu xidhay wadooyinkeeda waxaana mashruucaasi iska kaashaday dawladda hoose hay'adda DDG iyo waliba wasaaradda tamarta goorayna waxa ka hadlay daafurkaasi mas'uuliyiinta shirkadda Gurmad oo iyagu fulinaysa mashruucaasi iyo waliba isduwaha wasaaradda tamarta waxaan maanta halka ku daafuranaa mashruuc light oo solar mashruucaas oo ka hirgalay gobolka Sool degmadiisa Laascaanood laamiyadii cusbaa 2016 iyo 2017 la sameeyay qayb kamid ah mashruuca kan ah solar munaafacaad weyn leh dadka iyo bilicda iyo hadii baqadarkeeda leeyahay laga hirgeliyay sanadkan hadda ku jiro dabayaaqada sanadka hore aan rabnay la raadiyay in la wada geliyo imikana mashruuca kan waxa hirgeliyay DDG wasaaradda tamarta iyo dawladda hoose intaba aad baan ugu mahadnaqanaa hay'adii keentay mashruuca kan DDG wasaaradda tamarta oo aad iyo aad ama xagga khibradda ha noqoto mashaariic hore meesha ka fulisay ama xagga fududeynta iyo la shaqeynta ha noqoto agaasimaheedina la joogo dawladda hoose oo maayarkii iyo xogayihii iyo iyaguna aad wada shaqeynta iyo qorshaha baleenka toon baleenka magaalada nagala qayb qaatay anagoo hay'ad shirkadda Gurmad ee Solar Energy oo magaalada awal la hore u keenay leer jaban oo magaca iyaguba uu Gurmad yahay oo aan magaalada hore ugu soo gurmanay iminkana aanu qaadanay mashruuca kan maanta oo bishu tahay sodonkii bishii 2017 waxaa halkan lagu daafurayaa wadada farxaskulle ee gobolka Sool degmada Laascaanood Solar Energy iyadoo halkan ay la taagan yihiin mas'uuliyiinta gobolku iyo hay'adii maxaa shirkadii Gurmad oo iyadoo fulinta lahayd maayarkii iyo xogahayihii iyo mas'uuliyiintii shirkadda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa run ahaantii dadaalka fiican ay sameeyeen waayo leerku waa nolosha bini'aadanka wuxuu ka qayb qaataa iftiin la'aanta waa mugdi adduunku wuxuu ka qayb qaataa quruxda magaalada gabagabadiina waxa ka hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Laascaanood iyo waliba maayirka degmada Laascaanood labadooduba ku dheeraaday in la ilaashadaan dadweynaha xaafadda Farxaskulle ee magaalada Laascaanood sidaad la socotaan magaaladu way weynaatay wadooyinku way badan yihiin inay helaan systemkan solar systemkan oo security-ga ama laamiyada bilicda muujinaya inuu ku dhamaado laamiyada taa anaga dawladda hoose ahaan survey baanu qaadnaa sida ay priority-ga u kala mudan yihiin ama wadooyinku u kala baahi badan yihiin ayaanu marba qaybtii baahidu ay markaa taagan tahay u leexinaa waanu sii wadanaa qaybta dawladda hoose ahaan waxaanu diyaar u nahay inaanu qaybteeda sidaan horeba ugu fulinay iminkana fulino shacabka waxaan ugu baaqayaa inay ilaashadaan waxaan leerarka inay ilaashadaan wadooyinka inay ilaashadaan inay aqal inaan kii markaa ama ciladooda ama wax kale ku yimaado si degdeg ah inay dawladda hoose wala soo socodsiiyaan saan markiiba wax uga qabanno waxaan kaloo baaq halkan uga jeedinaya shirkadaha leerka ee Gurmad iyo Lesco inay xaafadaha ama istiraadada bilaa leerka ah inay geliyaan saan hore anaga iyo maayirku qoraal ugu gudbinay inay qayb ka qaataan maadaama ay shacabka ay ka shaqeeyaan oo lacag ka qaataan in ay security-gooda iyo amnigoodana iyo bilicda magaalada ka qayb qaato ilaahay baa mahadle maanta waxaan joognaa wadadii Farxaskulle oo lagu xiray nalkii solarka ahaa nalkaasi dadweynaha xaafadda Farxaskulle waxaan ugu bishaareynaa inuu caawa bixi doono hadii la haydmo waa gabagabo maalintii ugu dambeysay mashruuca caawa idinka ilaahay xaafaddan iyadoo dhalaali doontaan arki doontaan siyaasadda dawladda hoose iyo golaha deegaankuna waxa weeye in magaalada Laascaanood laamiyada ku yaala dhamaantood ay helaan nal oo xaafad walba iyo laami walba nalka solarkii inuu gaaro
meelo badanna hay'ado badan waan wada wadnaa iyo dowladda hoose in idinka ilaahay mashruucan iska kaashano oo laascaanood oo gidigeed xaafadeed wadana leeyahay hello qodobka labaad waxaan dadweynaha ugu bushaareynaa soolarada hore jiray in wiiga soo socda dayactir lagu bilaabi doono wixii xumaaday la hagaajin doono haddii la haydmo iyana wiiga dambe ay bixi doonaan haddii la haydmo siyaasadda dowladda hoose waxa weeye degmooyinka kalena 3 degmo noo qorshaysnaa xudun kalabayd iyo yogoori degmada yogoori nalkii soolarka waa la geliyay idinka ilaahay uu dhamaado iyana way fisaa waxaan oo haray yogoori iyo xudun iyana dhawaan baa laga hirgelin doonaa haddii la haydmo dadweynaha waxa leeyahay dadweynaha iskaashano dadweynaha xaafadana waxaan ugu baaqayaa guud ahaan magaalada Laascaanoodna war dadweynaha waxaan idin kaale waa inaad ilaashataan Barkad Cumar Axmed warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Laascaanood